Good morning, Trina. Good morning, Captain Whitaker. Here's your manifest with 102 souls on board. Let's get them tucked in. We're ready to... ka waran daawade haddii aad aroortii markii aad ka kacdid hurdada oo aad quracatid ka raacdid diyaarad aeroboortka magaaladaada kaba soo qaad inaad degan tahay Jabuuti kadibna diyaaraddii aad ka raacday Jabuuti ay ku geyso magaalada London intaan la gaarin duhur aadna ka qadaysid isla magaalada London kadibna aad hawlahaaga soo dhamaysatid isla fiidnimada maalintaasina aad dib u soo raacdid diyaarad oo aad ku soo noqotid Jabuuti kadibna aad seexatid habeenkaasi gurigaaga laga yaabaa inay tahay khiyaali laakiin ma ogtahay in haddii ay ilaa maanta jiri lahayd diyaaraddii loo yaqaanay Concorde uu ahaan lahaa khiyaaligani waaqac waxay ahayd diyaarad ka dheeraysa codka kuna soo koobtay safaradii dhaadheeraa ee saacadaha badan qaadan jiray dhowr saacadood iyadoo ka dhigtay adduunka sida tuulo oo kale ayna sahlan tahay in la isaga kala goosho haddaba maxay ahayd diyaaraddani si xaggee ku dambaysay magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina waa Waaberi Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaal aynu ku lafagurayno diyaaraddii ugu xawaaraha badnayd ee uu sameeyo aadamuhu Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inteenan u gelin muuqaalkeenna haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad nagu soo biirtid oo aad taabatid calaamadda subscribe sidoo kalena aad shidatid gambaleylka si ay kuu soo gaaraan dhammaan muuqaaladeenna cusub isla goorta aynu soo gelinno haddii uu ku qanciyo muuqaalkuna ha ilaawin inaad leeg saartid lana wadaagtid asxaabtaada mahadsanidin aynu u galno muuqaalkeenna maanta diyaaradaha loo yaqaano Concorde waxay curatay fikradda samayntoodu bartamihii lixdameeyadii xilligaasi oo ay shirkaddii la oran jiray Bristol Airlines ee laga lahaa dalka Ingiriiska ku fakartay samaynta diyaarad ka dheeraysa codka ama jabaqda qaadi kartana ugu yaraan 100 qof halkii safarba qorshaha shirkaddani ku doonaysay samaynta diyaaraddan ayaa markii loo guda galay noqday qorshe u baahan dhaqaale aad u badan awoodna aysan u yeelan karin hal shirkad inay farsamayso taasoo ka dhigtay shirkaddan mid garab weydiisata xukuumaddii Ingiriiska laakiin waxay muddo wadaan qorshahan waxay garowsatay boqortooyadii Ingiriisku inaysan kaligeed ku filnaan karin fulinta qorshaha diyaaraddan ayna u baahan tahay dhaqaale aad u badan oo aysan awood u lahayn khasnadda boqortooyadu inay daboosho taasoo ka dhigtay mid ka dalbata shirkaddii lahayd fikraddan ee Bristol Airlines inay raadiso maalgeliye labaad oo maalgeliya waxayna u sheegeen inuu noqdo maalgeliyahaasi dal oo uusan noqon shirkad gaar loo leeyahay waxay ku qanciyeen Faransiiska inuu la shuraakoobo oo uu la galo samaynta diyaaradahan waxayna u kala qaybsadeen laba qaybood 40% samaynta diyaaraddan waxaa dusha saaratay boqortooyadii Ingiriiska halka 60% ka soo haray ay qaateen Faransiisku waxay awood u yeesheen horaantii mashruucan inay sameeyaan 6 diyaaradood oo tijaabo ah kadibna waxa ku xigay 14 diyaaradood oo rakaab loogu talagalay waxayna u kala qaybsadeen laba qaybood 7 diyaaradood oo la siiyay Faransiiska iyo 7 uu qaatay Ingiriisku 21 bishii 11 sanadkii 1976 ayay shaqo bilaabeen diyaaradahan waxayna shaqaynayeen 27 sano oo xiriir ah ka hor intaysan shaqada joojin sanadkii 2003 Concorde waxay ahayd diyaaraddii ganacsi ee ugu horeysay adduunka ee ku duusha xawaaro laba jibaar ka sareeya xawaaraha jabaqda ama codka waxay ku soo koobtay saacadihii safar ee la isaga kala safri jiray magaalooyinka Singapore iyo London ee dalka Ingiriiska oo ahaa markii hore 17 saacadood 7 saac oo kaliya ma malaysan kartaa daawade farqiga u dhaxeeya labada lambar waxay meesha ka saartay 10 saacadood oo dhammaystiran tusaale ahaan diyaaradda ka baxaysa magaalada Istanbul ee u socota magaalada Muqdisho waxay socotaa ku dhawaad 8 saacadood oo xiriir ah laakiin haddii ilaa maanta ay shaqayn lahayd diyaaraddani wuxuu ku soo koobmi lahaa waqtiga u dhaxeeya labadan magaalo 2 saac iyo bar halka uu horey ka ahaa 8 saac qaab dhismeedkeeda casriga ah iyo naqshadeeda qurxoon oo ka duwaneed xilligaasi diyaaradihii ka jiray adduunka ayaa ka gaar yeelay diyaaraddan diyaaradaha kale waxayna muddo yar ku qabsatay suuqa laakiin ma ahayn diyaarad qofkii rabaa uu raaci karo maxaa yeelay sida aynu kor ku soo sheegnay waxaa ku baxay samaynta diyaaraddan qarashaad aad u sareeya qarashaadkan waxaa ku sii biiray korukac filanwaa ah oo ku yimid shidaalkii adduunka wixii ka dambeeyey sanadkii 1973 taasoo ka dhigtay diyaarad badana ay adeegsadaan dadka maalqabeennada ah iyo dadka caanka ah ee aan haysan waqti ay ku lumiyaan safar maxaa yeelay sida aynu ku soo sheegnay bilowgii muuqaalkan qofka ku safraya wuxuu awood u lahaa inuu ka quraacdo magaalada London sidoo kalena uu ka qadeeyo isla maalintaasi magaalada New York ee dalka Mareykanka waxayna gaartay diyaaraddani heer ay ganacsatada iyo maalqabeennadu isugu faanaan inay ku safreen diyaaraddan haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah xagee ku dambeysay diyaaraddani si maxaa loo joojiyey dhibaatooyin badan oo isbiirsaday ayaa sabab u ahaa
in diyaaraddani ay ka baxdo hawada. Dhibaatooyinkan ayaa ahaa kuwo dhammaantood ku biyo shubanaya in diyaaraddani ay tahay diyaarad aan dhaqaale ahaan soo xiranayn faa'iido macquul ah. Dhibaatada ugu horreysa waxay ahayd in diyaaraddani ay u baahan tahay shidaal badan mar walba oo ay hawada gelayso, waxaana loo sababeeyaa shidaalkan badan ee ay adeegsan jirtay heerkulka diyaaraddan oo aad u sareeyey xawaaraha ay ku socoto daraaddeed, kaasoo keeni jirtay in si xawli ah ay u shaqeeyaan maruuxadaha dhinacyada diyaaradda ku yaala iyo sidoo kale mukayfyada gudaha. Arrinta shidaalku dhibaato saa u weyn kuma lahayn diyaaraddan ka hor intaan la gaarin 1973 sanadkan oo uu dhacay dagaalkii loo yaqaanay dagaalkii Oktoobar ee ay Carabtu u midoobeen gumaystaha Israa'iil iyo dalalkii garabka siin jiray iyagoo ka goostay shidaalkii. Arrintani oo keentay inuu kor u kaco qiimihii shidaalku. Diyaaradda Concorde ayaa gubi jirtay ku dhowaad 2 tan oo shidaal ah inta ay ku ordayso gegada ayraboorka oo keliya. Macnaha intaysan hawada gelin ka hor orodka ay ku ordayso gegada ayraboorka ayay ku gubi jirtay 2 tan oo shidaal ah, halka marka ay safarka ku jirtana ay gubi jirtay shidaal waali ah. Tusaale ahaan, marka ay isaga kala safrayso magaalooyinka London iyo New York waxay gubi jirtay 100 tan oo shidaal ah. Haddii aan barbar dhigno, diyaarad ka mid ah diyaaradaha shirkadda Boeing oo ah diyaaradda Boeing 777 waxay safar intaa la eg marka ay duulayso ku gubtaa 44 tan oo keliya. Intaasina waxaa ku dheer in diyaaradda Concorde ay qaadi jirtay 100 rakaab oo keliya, halka diyaaradda Boeing ay qaado ku dhowaad 400 oo rakaab ah halkii marba. Dhibaatada labaad ee ka qayb qaadatay guuldarrada diyaaraddan ayaa ahayd qiimaha waalida ah ee lagu goosan jiray tigidhadeeda. Si aad isaga kala safartid magaalada London iyo New York, waxaad u baahan tahay inaad ku jaratid tigidhka lacag u dhaxaysa 8,000 ilaa 11,000 oo dollar. Dabcan, ku darso xisaabta in xilligaasi uu dollarku ka qaalisanaa qiimaha uu joogo maanta. Dhibaatada saddexaad ee sidoo kale soo dedejisay in diyaaraddani ay suuqa ka baxdo ayaa ahayd in diyaaraddani loo oggolaa inay dul marto dalal cayiman oo aad u tiro yar. Maxaa yeelay badanaa dalalka adduunku inay dul maraan hawadooda diyaaradaha dhawaqoodu ka dheereeyo codka sababo la xiriira dhawaqooda waalida ah ee aadka u sareeya oo uu dhibsanayo qof walba oo maqla. Waxaana ugu horeeyey dalalka mamnuucay dalka Maraykanka oo ku guuldaraystay in shirkadihiisa diyaaraduhu ay yagleelaan diyaarado la tartami kara diyaaraddan, taasoo keentay in markii ay awoodi waayeen ay ka mamnuucaan inay dul marto hawadooda. Laakiin maxkamado dhowr ah oo ay isla mareen shirkaddan iyo Maraykanku, ugu dambeyn Concorde waxay ku guulaysatay inay hesho oggolaanshiyaha hal safar oo ay ku dulmari karto Maraykanka, kaasi oo ahaa safarkii isaga kala gooshi jiray magaalada New York iyo magaalada London. Dhibaatooyinkan oo dhan waxaa ku soo biiray shil ay geysatay mid ka mid ah diyaaradahani, kaasi oo galaaftay nolosha 113 qof oo 4 ka mid ah ay ahaayeen dad ku sugnaa goobta uu shilku ka dhacay oo aan la soconba diyaaraddan. Shilkani ayaa soo dedejiyey in bishii afraad sanadkii 2003 ay ku dhawaaqaan Ingiriiska iyo Faransiisku inay si gebi ahaana u joojiyeen adeegsiga diyaaradahan, waxaana loo qeybiyey diyaaradihii 14 diyaaradood ahaa ayraboorada iyo mataaxifda dalalkaasi. Waxaana sidaasi ku soo idlaatay sheekada mid ka mid ah diyaaradihii ugu xawaaraha badnaa ee uu aadamuhu sameeyo. Welina ma jirto cid samaysay iskuday la mid ah marka laga yimaado in bishii 9aad sanadkii 2017 ay ku dhawaaqday wakaaladda NASA oo garab ka helaysa shirkad la yiraahdo Lockheed Martin inay ku maalgashteen 358 milyan oo dollar samaynta diyaarad ay ugu magacdareen X-59 QSST, waxayna bilaabayaan tijaabadeeda sanadka 2022. Waxayna sheegeen in diyaaraddan ay ka dheeraynayso sida diyaaradda Concorde oo kale dhawaqa ama jabaqda. Haddaba, su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, ma laga yaabaa daawade in uu adduunku mar kale dib u arko diyaarad sida Concorde u xawaare saraysa, se ma laga yaabaa inay timaado maalin aynu magaalo aroortii ka jarmaadno una jarmaadno magaalo ku taala darafka kale ee adduunka, aynuna dib ugu soo noqonno isla fidnimada magaaladeennii iyo gurigeennii? Nagu reeb daawade jawaabtaada kommentiyada hoose ee muuqaalkan. Sidoo kalena haddii aad soo gaartay halkan, ha ilaawin inaad leeg noo saartid, naguna soo biirtid haddii aadan weli nagu soo biirin. Mahadsanidin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.